iyadoo lagu wado in uu gaalkacyo ka furmo shirka ay ka talinta beesha Tanade ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay deegaanka Galbarwaaqo wafdi uu hogaaminayo Cali Ugaas Maxamed oo ay weheliyaan xubno kale oo reer Ugaas ah xildhibaano iyo aqoon-yahano waxaana soo dhaweynta ka hadlay xogayaha guddiga qabanqaabada Cabdigaas Khaliif iyo Maxamed Yuusuf Xaashi sanahay inaan maanta tuulada Galbarwaaqo oo tuulo beeshu leedahay oo gaalkacyo waxay ku soo dhaweyno wafdi ballaaran oo Cali Ugaas waad wada garanaysaan Ugaaska iyo dhammaan xubnaha reer Ugaas Suldaan Subeer xildhibaanadii federaalka nabadoonnadii aan waxba ka maqnayn aqoon-yahanadii dhalinyaradii intii u dambeysay oo ergadii shirka ka qayb gali lahayd inaan soo dhaweyno hadee waxaan rabnaa hadii ilaahay mas'ala la sheegay dhammaan ergooyinkii waxay ku dhan yihiin magaala madaxda gobolka Mudug ee Gaalkacyo oo shirka lagu qabanayay waxaan kelmad siinayaa oo Ugaas ku soo dhaweyn doona Suldaan Subeer Suldaan Yawdiin السلام عليكم ورحمة الله خياري سودا وهذا ماشان وحدود كي مقالة قالكعيو ما شاء الله وفتي سودا وين وفتي ما أنت عادي عاد ما ركت ما شاء الله وقاسكي يو سلطانكي يو نبضونا دي حلمان دي دمان وحني لنا ويلكم سودا وهذا هذا الرجال خيارته دمانتد كل يوادر كيسان إن ما ركتي عنه سودا وين نمانتي odayaashii iyo Ugaaskii iyo dhammaan dadkii xilkaska ahaa intii u dambeysay oo galdow maanta ka timid ayaanu soo dhaweynaynaa insha Allah shirkiina waxaan rajaynaynaa inaanu dhawaan aan furo hadii Ilaahay idmo bari hadaan aan furin wixii ka dambeeya bari hawshaasi waa bilow insha Allah yaa بران كدق هدي odayaashii waxay yiraahdeen hadiida ka daayo bari ka dhig in sha Allah waa furayda bari biin illaahi kariim aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa odayaasha marka waxaan siinayaa xogayaha guddiga dhanka kale waxaa soo dhaweynta ka mahad celiyay Cali Ugaas Maxamed xildhibaan Sadiiq Warfaah iyo suldaanka beesha Tanade Subeer Xaaji Maxamuud Cali waxaanu leenahay shirka Ilaahay khayr ha nooga dhigo Ilaahay ha noogu furo si wanaagsan Ilaahay si wanaagsan noogu hirgeliyo waanu soo imaanaynaa waana isu nimid hadee war kale badan anaga nuguma jiro alxamdulilaahi rabbil caalamiin baan leenahay ilaahuna nabad yeel ilaahuna naga raali noqo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh rahmaanir rahiim waxaan halkan ka salaamayaa isimada dhammaan waxaa sharaf noo ah inaan maanta aan wafdi culus oo Cali Ugaas uu hogaaminayo aan u socono magaalada Gaalkacyo anoo ku hadlayo xildhibaanada dadkan beesha aan ugu matala golaha federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed xildhibaan Daahir Maxamed Muuse la socda iyo xildhibaanadii kale oo Gaalkacyo jooga waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa waxa weeye in laga shaqeeyo midnimada waana ku faraxsanahay inaan maanta aan midnimo ku joogno waxaan ka shaqeynaynaa midnimo ummadda Soomaaliyeed iyo midnimo beesha marka insha Allah taala shirkaan noo furmi doono wuxuu noqon doonaa guul ummadda Soomaaliyeed noqon doonto waana maasantiin yaan ku mahadsan fursadan qaaliga in markaan siiyo intaas kadib warku waa inta la sheegay waqtiguna waa yar yahay anagu waqtiga soconayay oo balaaran waxaan ka mid degmadii Galdogob guud ahaan waa lagu fiicnaa ehel iyo qaraabada inta aad warkeeda haysaan intiina soo dhaweysana waa mahadsantihiin intana maqlayso oo caalamka meel kasta joogtana insha Allah waa salaameynaa sida la sheegay shirkaas loo balansanaayo muddada dheer waqtigiisu socday haddana biri loo madalsan yahay inuu furmo ayaanuna nahay gurmadkiisa ugu dambeeyay ama qaybtiisa ugu dambeysay oo xagga laga sugayay insha Allah sidaas ayaan soo dhaweyn kadib ayaa waftiga waxaa loo soo gudbiyay magaalada Gaalkacyo gaar ahaan hotelka oo lagu wado in uu ka furmo shirka ay ka talinta beesha Tanade Maxamed Umar Afdhub warbaahinta Hadaf Public magaalada Gaalkacyo